عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqosho wanaagsan. Waxaan ka hadlaynaa maanta choroidka uveal triangle qaybtiisa ugu dambeyso ayaan ka hadlaynaa baartii ugu dambeeya choroidkana ka hadlaynaa. choroidkan waa kana ilaa inta ayuu soo gaaraya. Waxaan ka soo hadlnaa ariska ciliaryga shaqada noo qabanayo iyo choroidka ka soo hadalno. choroidkana maanta ugu dambeyso insha Allah ka hadli doona. Anatomy and physiological ahaan ayaa maanta u baranaynaa. choroidka waa high vascular wuu xididdo badan yahay waana thin way wuxuuna u dhaxeeyaa iskaleeraha iyo ratinaha ayuu u dhaxeeyaa. Extend wuxuu ku yahay optic nerve wuxuu ku soo xiran yahay optic nerve wuxuu ka kooban yahay layer gaara 4 layer ayuu ka kooban yahay. Marka main function structure kiisana shaqada waxa way blood vessels kaas way. External layers oo retinal consist most part oo blood supply vessels ka sii waa retinaha. Developmental ahaan cornea choroidka wuxuu yaalaa middle layer ayuu wuxuu u dhaxeeyaa posterior uvea. Embryological ahaan wuxuu bilowdaa dhamaada 4 weeks ayuu ku bilowdaa oo ku dhamaada. Apicalka waa cranial natural folds. Choroidka waxaa ku dahaaran vitreous tunica present was a portion of the uvea. So marka present waxa waa thick region way oo ciliary zone by wuxuu ku dhamaana oras sarata. Choroidka laba face ayuu leeyahay, external face iyo internal face. External face ka waa convex ahaan waa convex waa kana convex san ayuu u yaalaa wuxuuna ku siixayaa cell drysis wuxuu ku yahay with sclera through wuxuu soo maraa ciliary nerve and lax of connective tissue. Internalka wuxuu ku xiran yahay concave ahaan u muuqda kan waa concave ahaan waa laba tuure fetus wuxuu ku yahay retinaha without adhesion. Choroidka laba meel ayuu ka furan yahay, anterior iyo posterior ka furan yahay. Anterior wuxuu ka furan yahay oras sarata, posterior wuxuu ka furan yahay optic nerve. Marka qofka markuu dhashanayo culays ahaan wuxuu gaaraa 200 with age ayuu gaaraa qofka markuu dhashanayo. Laakiin qofka markuu da u noqdo wuu yaraana wuxuu noqonaa 80 markuu 90 daada uu gaaro. Layers markaan ka hadalno 4 layer ayuu leeyahay. External layer, external pigment layer ama waxa loo yaqaan suprachoroid waa zone oo transitional zone way wuxuuna u dhaxeeyaa sclera iyo choroidka. Wuxuu ka kooban yahay elastic connective tissue ka kooban yahay, collagen fiber ka kooban yahay, thin lamella ka kooban yahay thin lamella ka kooban yahay wuxuu kaloo ka kooban yahay melanin waxa loo yaqaan lamina fosca. So marka fibroblast way oo flat melanocytes ka waxa kaloo jira internal vascular layer. Internal vascular layer laba layer ayuu sii leeyahay. Wuxuu leeyahay outer layer oo halar ah iyo wuxuu kaloo leeyahay innerka oo ah shelter. Outerka waa large vessel special waxa waa venocortexka. So marka spiral pathway-gana waa confluence oo 4 vitreous ay gaaraan. Innerkana waa inner layerka waxa loo yaqaan association shelterka waa medial iyo small capillaries-ka vessels-kan especially waa originate artery kaasoo ka bilaabana originated ku ah ka bilaabana short posterior ciliary artery. Choroidka layerka saddexaad uu leeyahay waxa loo yaqaan chorocapillary. Chorocapillaries waa capillaries network way isku xiran yihiin. Network markii la waa isku xiran shabakad camal isku xiran yihiin. Waa capillary network waxayna u sameeyeen qaab hexagonal region. Hexo macnaha waa 6 waa homo waa 5 hexon waa 6 waa. Capillaries ka size waxay gaaraan 20 ilaa 40 laakiin inta badan waa high density capillaries waa oo waxay gaaraan markii measurement loo sameeyo 10 uveal diameter ahaan la gaaraan. So marka capillaries kaasi red blood cells oo waxa ku jira oo gaaray 77% ah kuwaasoo combination lagu sameeyo. Capillaries kan waa high protein waa increase wuxuu ku sameeyaa into external vascular stroma. Fluid-kan wuxuu u dhaxeeyaa retina iyo choroidka. Waxaa kaloo jiro broad membrane ayuu jiro. Broad membrane waa transparent layer waa homogeneous shan geesle waa wuxuu u muuqdaa si shan geesle u muuqda represent wuxuu ku yahay endothelium-ka oo basal membrane-ka. Capillaries kan wuxuu sameeysan yihiin choroidka u sameeysan yihiin qeybaha ugu dambeeya soo gaarnay choroidka innervation waxaa siiyo sympathetic iyo parasympathetic oo sympathetic iyo parasympathetic oo loo yaqaan oo ah prevascular ganglia. Parasympathetic waxaa siiyo brachial ganglia halka sympathetic oo siiyo superior cervical ganglia fiber.
ama vasoconstriction oo dilation sameynayaan oo meiosis ka sameynayaan mydriasis-ka. Choroidka blood supply waxaa siiya posterior ciliary artery oo posterior long shortiga. Innervation wuxuu ka helaa shorty iyo nerve supply-giisana waa long shorty ciliary. Marka shaqay ayaa jirto, shaqada jirto waxaa choroidka muxuu noo qabtaa. Choroidka shaqada ugu weyn uu qabto waxaa waa most layerska oo ratiinaha ayuu wuxuu siiyaa innervation ayuu siiyaa. boqolkiiba 87 iska leh waxaa siiya innervation ratiinaha layerskeeda waxaa siiya choroidka. Wadin kaga mahadcelinayaa daawashada video waa inoo cashar ka xigay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.